Safaaradda Soomaaliyeed ee Sanca ayaa waxay soo gabagabaysay doorashadii xubnaha cusub ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Yemen, waxaana guddoomiyaha loo doortay Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Wariye. Xafladdaas oo ka dhacday xarunta safaaradda si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Yemen, waxaana goobjoog ka ahaa madax ka socda dalka Yemen ee u kacay Danjire Axmed Cumar oo ah la taliyaha arrimaha dibadda iyo madaxda qaybta qunsuliyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda. الحكومات تتغير لكن الشعوب هي الباقية. بالأمس القريب كان اليمنيون يتواجدون في الصومال بأعداد كبيرة، واليوم أيضا يتواجد أعداد كبيرة جدا من الجالية الصومالية في اليمن. gabagabadiina waxaa ka hadlay sihayaha safaaradda Soomaaliya Mudane Cusmaan Axmed Maxamed asagoo ugu mahad celiyay marti sharaftii kasoo qayb gashay xafladda, wuxuuna aad ugu dheeraaday ahmiyadda ay leedahay jaaliyadda iyo doorka ay ka qaadan karto arrimaha bulshada. salaan kadib waxaan rabnaa maanta inaan halkaan ku soo gabagabayno hawshii beriyaha noo socotay oo ahayd doorashadii jaaliyadda ama dib u habeyntii jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Yemen, taasoo muddo dheer soo socotay runtii. annagoo wada dhisnay ood ogtihiin labadii guddi ama labadii majlis ee ay ka koobnay jaaliyaddu, majlis la-acyaantii ama odayaashii dhaqanka majliskoodii iyo majliskii labaad ee ah fulinta ama tanfiidka majliska la yidhaahdo. marka maanta waxaa sharaf noo ah aada ugu faraxsanahay in aan halkaan ku soo afmeerno hawshii aan muddada dheer ku jirnay, iyadoo ay nagala soo qayb qaateen walaalaheenna Yemanta oo aan ku dhex nool nahay. aada iyo aadna aan ugu faraxsanahay runtii arrintaa iyada. intaa kadib waxaan rabaa inaan meeshaan ka caddayno jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Yemen waxyaabaha aan uga baahannahay oo ugu muhiimsan dadkuna u baahan yahay inay tahay isku duubnida shacabka, maslaxada shacabka iyo dadka iyaga dhibaataysan ee dalka joogo sidii ay uga warhayn lahayn duruufahooda. walaalayaal waa la wada socotaan, dalkan dhib badan baa ka jiro, culays badan baa ka jiro, dagaal baa ka jiro. annaguna waa ku noolnahay oo dad badan baa ku noola Soomaaliyeed. dadkaas Soomaaliyeed marka inay badbaadaan baa la doonaya hadduu alla idmo, oo aad u khidmaysaan oo aad maaragtay ka soo baxdaan insha allah adinka oo kaalmaysanayo safaaraddiina Soomaaliyeed ee dalka Yemen. aan ugu mahad celiyo walaalaha nagala soo qayb galay, ugu horeeyo wasaaradda arrimaha dibadda ninka ka socdo السفير أحمد عمر. doorashada kadib ayaanu waxaynu su'aal weydiinay guddoomiyaha iyo wuxuu ka jawaabay sida tan. dareenkayga aada iyo aad waa mid sarreeya, waa mid ummadda Soomaaliyeedna waa guul soo hoyay. qorshuhu fara badan yahay, laakiin waxaa li salaadba markay joogtaan tukadaan. marka qorshaha imika waxaa noogu jira sidii ummadda Soomaaliyeed aan isu keeni lahaa oo u noqon lahayd ummad mida. mas-uuliyiintii hore wax weyn bay qabteen oo way ku ammaanan yihiin. annaguna waxaan isleenahay intii ka dhinayd iyagu inaan dhamaystirno. annagoo mikrofoonka la dhex qaadayno bulshaweynaha Soomaaliya ayagoo ka hadlaya dareenkooda sida tan. waxaan wanaagsan haddii lala shaqeeyana u wanaagsanaan, haddii lala shaqeyn waana dee kuwa orqolon. waxaan jeclay in lala shaqeeyo la taakuliyo oo daacad loola shaqeeyo, daacadnimo wax walba daacad ku yimaada. haddii turfatoore iyo iska dabahadal iyo wax ka sheeg waxaasna ma socon maayo. Soomaalina inta dishawaanta waxaan doonay wallahi aan ciidan faylu uuna macnaha ciidanka faraxsanna dadka ka nool Yemen macnaha khaasatan sanaan ciidanka faraxsan yihiin
قول إذن من جيك من هذا كسومالي هو يوتيوب لكن حتى جاب وي إذن كبرار جيد كسومالي ودك دارو إن إلى هلو قبصل والله waxaan u arkaa gudoomiyuhu inuu qalmo gudoomiyenimada jaaliyadda dhalinyarta kale maaragtay afarta kale lala doortayna waa rag runtii ku qurux badan in maaragtay boosaska ku qurux badan waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala inay noqdaan kuwii ku guuleysta dadka meesha isugu yimideen dhammaantood wax ka muday muwaafaqo iyo wax maaragtay iyana u baahan yihiin in maaragtay ay yeeshaan gudoomiye iyo jaaliyad cusub dagaaladii duqeymaha ka socda dalka Yemen ayaa waxaa u suurta gashay mudane Cusmaan Axmed Maxamed si uu soo cusboonsiin lahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Yemen. محمد جيلاني SBC صنعاء